بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم gudoomiyaha golaha wakiilada dawladda Puntland gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada dhammaan xubnaha golaha wakiilada howlwadeennada golaha martisharafta iyo saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane gudoomiye maanta oo taariikhdu tahay 25 bisha 6 2018 kalfadhiga 41aad fadhigiisa saddexaad kooramka fadhiya waa 42 fasax aad buu mahadsan yahay xildhibaan maxamed axmed ibraahim ajar iyo xasanaad allah ka siiyo ayadaha qur-aanka kariimka innagana allah inagu anfaco mudane gudoomiye waa kugu soo dhaweynayaa si ay noogu furtid howl maalmeedka ku soo dhawow shalay waxaynu isku raacnay ajendihii sidii ugu qormi lahaa ama intu ka koobnaan lahaa maantana waxaanu u balansanay horumarintii ajendaha annagu sidaa hadda laydinku dhegay baanu u soo qeylinay idinkuna sidii inaad ugu raacdaan iyo inaad ku dartaan oo ka beddeshaan waa idin hortaala ku soo dhawaada mudanayaal waa mahadsantiin 39 mudana fadhiya waxaan u horumarinayaa yaa qoysiisa loo daayo yaa diiday yaa ka aamusay waxaan dilaynaa inuu inoo ku dhammaaday sidaa uu qoran yahay insha allah berritan sunagaan waa salaamantiin sidii waa inoo celiyay bismi illahi raxmaan raxiim maanta oo ay bishu tahay 25kii juun 2018 waxaa golaha wakiiladu ahaa fadhigii saddexaad golaha wakiilada fadhigaa saddexaad oo maanta waxay isku raaceen inay meel mariyaan 12 qodob sidii aan u soo diyaarinay bayna u qaateen inay tahay sida rasmiga ah oo lagu kala hormariyey oo uu ku socon doono waxaan noo bilaabmayaa markaa insha allah berrito inaannu bilowno qaybtii hadhay oo ay ugu horeyso warbixinta guddiyada joogtada maadaama muddo dheer hadda fasax la ahaa guddiga joogtada ayaa shaqada sii haya isaga ayaa intaa fasaxa la yahay mas-uuliyadda wixii xeerara iyo wixii dabagala shaqadeeda leh marka 10 guddi weeyaan 10ka guddi ayaa ku xigaya guddi walbi wixii uu ka soo ururiyey muddada fasaxa ahayd iyo xeerarkii ay sida ku meel gaarka u ansixiyeen sidaas ayay hawshii noogu dhammaatay idinkana dadweynaha waxaan rajaynaynaa inaad nagala socon doontaan marar badan saxaafadda aad iyo aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu